السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عيد وناكسن دمان walaalahayga muslimiinta adduunka meela ka joogtiinba ilaahay waxa idinka garajeynaa caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban. bishii ramadaan way dhamaatay alxamdulillaah. iga raali ahaada bishan waa idinka maqnaa leeno bishan waxaan u maqnaa ilaahay cibaadadiisa inaan maaragtay break iska qaato oon waxba videoyaal iyo mashquul kala gelin. dee mar haddaa hooyo iyo xaas tahayna waa iska taqaaniin afur iyo shaqo iyo wala iska galaa moogta. marka alxamdulillaah bishii ramadaan ilaahay khayr buu noogu dhameeyey inkastoo masaa'ib badan adduunka ay ka socoto cudurro badan dad badan aad maaragtay u liitaan ilaah u naxariisto wixii dhintay wixii cudurka hayana ilaah ka caafiyo. maanta barnaamijkeena waxaan ka hadlaynaa insha allah cadowga ugu weyn ee qofka dumarka ah uu leeyahay. haddaan si u eegno waxaan isleenahay ama qaarkeen aan ka jawaabno ama su-aal lagu weydiiyo lagu yidhaahdo qofka cadowga ugu weyn qofka dumarka uu leeyahay waa ayo. su-aashaas jawaabta ugu horeysa waxay noqonaysaa waa ragga of course, laakiin maanta waxaa idiin sheegayaa ragga inaysan ahayn. qofka dumarka ah cadowgiisa ugu weyn wuxuu yahay dumar iyadoo kale ah ama gabar walaasheeda iyadoo kale ah. haddaa u fiirsatid gabadha walaashaa ah ama qofka dumarka sidaadoo kale ah guriga markay kugu soo gasho asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawow marka ugu horeysa samaynaysaa inay hareeraha eegta bal guriga maxaa ku cusub, maxaa kugu soo ziyaaday, maxaa keentay, ma miis cusubbaa keentay, ma nal cusubbaa soo dhejisay, ma daah cusubbaa keentay. hadday ku aragtay inuu daah cusub kuu suran yahayna su-aasha ku xigta waxay tahay heere daahan waa hore laga baxee walaalay maxay tahay daaha kuu suran soo tii daahay sanadkii hore ah soo maaha. marka waxa weeyaan always waxaan isku daynaa qofka walaalkaa ah ama qofka dumarka ee walaashaa ah in hoos loo dhigo. lagama yaabo qof dumar ah ilaa man raxima rabbu ilaah qof u naxariista ma ahane inay inta kuu soo gasho ay ku tiraahdo asalaamu calaykum ciid wanaagsan maasha allah beautiful gurigaaga maasha allah daha beautiful kuu xiran ayadoo si daacad ah niyaddeeda maaragtay ka dhahaysa. meel baa suugu imaanaysaan kulligiin asalaamu calaykum waxaa ku xigta calaykum assalaam waxaa ku xigta naheedha maxaa sidan kuu galay walaali waa madoobaatay amaane naheedha waa la iscadeeyaa ima isnuurist soodiga hareeraha indhaha ku yeeshay na walaali maxaasaa ugu caatooday waa maxay ayaantaan ma cudur baa ku hay ma xanuunsanta ayaantaan mise walac baa taa walaali ilmo kala wadaa na walaali maxaasaa ugu cayishay ayaantaan aad baa u cayishay ayaantaane na walaali sida isku dhan ninkii kaa tegine. marka cadow aad iyo aad u weyn baa isku nahay. hadda dadkaas waa dadka kugu sokeeya iska dhaaf dadka adiga ku xasdaaya ama dadka adiga maaragtay xinka kugu samaynaya ama dadka xiqadka kugu samaynaya kuwaas xagga meel dhig. kuwa waa kuwa kugu sokeeya isleedahay waa asxaabtaadii kugu dhawaa waa gruubka ku dhex jirtay waa lagu imaanaya guriga lagugu imaanayaa. waxa waaye rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi dumarka naarta u badan li'inno waxaa la yidhi waay rasuulkii oo maxay ugu badan yihiin dumarka naarta wuxuu yidhi carabkii intuu kor usoo saaro yidhi kaas bay ugu badan yihiin naarta. waa lagu imaanayaa maanta war baan ku wadaa war heblo maanta saasay dhigtay, heblo ninkii bay hebel ka qaaday, heblo maanta waa la furay, heblo maanta cunugii baa laga xiray, heblo maanta cunugii baa laga sameeyey, maanta cunugii waa maaragta waa ka saaqaday iskuulkii waa ka tegey. waxa waa lagama yaabo in aan si naxariis leh oo ilaahay noogu naxariisto aan isugu naxariisano. waa labisan tahay bannaankaa jirtaa waa meelaa lagugu soo galaya ama dukaan baa lagugu soo galayaa haye ii waran saaxiib maxaa haysaa caafimaad ka war alxamdulilah. halkii sidii qofkii dumarka ahaa oo walaasha ah oo daacadda ahayd oo qalbiga furnayd ay ku dhihi lahayd maasha allah you look beautiful today, beautiful oo labisan tahay sidaa kuwad ee niyadda kuu dhisi lahayd ay meel kaa soo saari lahayd oo walaasha ku taageeri lahayd qofka dumarka ah ee garabkaaga taagnaan lahayd. waxa weeyaan naheedha maxay tahay cambuurkaa xirantaa maanta cambuurkii 10 sano ka hor laga baxay waaye
boorsadan maxay tahay ma hindida ka soo gada walaalay boorsadan fake bay u egtaa uma eka marke marka waxa waaye waxa waa isdaba soconaa qofka walaasha ah oo daacadda ku ah markasta waxaad ku garanaysaa inay mar allaale meeshay kugu aragto ilaa ma 20 sano is arkin si daacada inay kuu salaanto oo si daacada kuu soo dhaweyso oo si daacada maasha Allah kuu tiraahdo oo wax ka sheegin oo wajiga wax ka sheegin oo dharkaaga waxba ka sheegin oo adiga lifekaaga waxba ay ka sheegin qofka aan daacadda ahayn waxaad ku garanaysaa oo astaamaha ugu horeeya ay tahay abeenadu qofkaas guriga ugu soo gala marka ugu horeyso gurigaaga uu soo galaba waa qasab inuu wax ka sheega na guriga maxay tahay dhex yaala na daahan maxay tahay duuga na kursigan maxay tahay sida u jeexjeexan na sidan ma isku dhaantid na ciyaalka ku qaylinayde ciyaalkaas looguma qayliye na cunuga suuqu ka gala kada waxa way maanta dhan waxa waa wixii kaaga soo horjeesanaysa waxaan la aqoonin maanta dhan waxay waaye adiga bay wax ka sheegaysaa adiga ba waxa laga yaabaa qof kuugu dhaweyd ay tahay best friend-kaaga adiga qofka kuugu dhaweyd ay tahay laakiin lagama yaabo haddii wax farxada ay qabto ama ay maaragtay waxa laga yaabaa inaad isleedahay qoftaas waa qofta kuugu dhow magaalada xaflada ay qabtaa aroos ay qabtaa meelba u socotaa xaflada u socotaa lagama yaabo inay ku casuunto laakiin maantay ku baahan tahay waa lagu yeeraa waxa lagu leeyahay walaalay kaale maanta meeshaas igee kaale maanta meesha ii qaad heel baa odagayba baaburka iga qaatay kaale baaburka meel hebleego tuur maanta waad garanaysaa waxaad ku garanaysaa astaamahaas laakiin adiga ma u baahatay ma tiri maanta baaburka iga jabay walaalay kaale shaqada igu tuur shaqadan ka daahsanay maaya walaalay baaburkii ma bayaa laba odagay qaatay marka astaamaha ugu waaweyn oo maaragtay lagu garto qofka waxa waaye always adiga waxay ka rabtaa inaad xog qabatid always hoos bay ku dhigaysaa always war bay ku keenaysaa ay fidno ogow haddii adiga war ku keentana ay war kuula timaado ay hebel ama hebla ama ka sheekaynaysan adiga inay biri ka sheekaynayso ha u malayn inay adiga ka sheekaynin that's why aniga waxaan believe garaysanahay qof dumar inaad sirtaada uba sheeganin gebigeedaba qof walaashaad ogtahay 100% inay daacad ku tahay oo ogtahay inay qalbigeedu qalbi furan yahay kaasna boqolkiiba 2 ama 3 laga helaa taas ma ahane qof kale inaad sirtaada u sheegan qof kale inaad dhibtaada u sheegan way ku imaanaysaa waxa leedahay walaali macaani maanta waxa leedahay walaasha ku nafistid xoogaa walaali maanta dhibaata ay haysato odagiya isku dagaal na iska aamus odagaaga ma aqaane keyga ma aragtid kaaga waaba shaqeeyay na aamus bal heedhe waxba sheegan dhibaatee ma kaaga shaqeeyo subax kasta shaqada u kalaha oo lacagta ku keena oo wuxuu furniture-kiina waa buuxaa keyga ma aragtid ti meelahan uu fadhiya coffee shop-ka iyo Tim Horton iyo meelahan uu taagtaagan wuxuu qabanay malaha waxa isleedahay ilmiya ku dhibo walaal macaani ilmiya maanta dhibayo ma garanay wiilashan waxa ku na iska aamus ma kuwaaga wax baranayo jaamacadda dhiganaya na kuwa jaamacadda ku dhiganaya waxba ka sheegin jaamacad bay ku dhiganaya mawaalanta adiga ma aragti kuyiga khadiyaan ba ka taagana iskuulkii baa ka soo fariisteen gurigay fadhiya lagama yaabo inaad ku nafistid wax kasto afka ka soo baxa 5 kelmadood ay ka soo tuuraysaa laakiin qofka walaalka ah oo daacadda ku ah oo saaxiibtaada runta ah oo ku jecel oo qalbiga ku haysa marka dhibaato u sheegtay ama odayga dhibaato u sheegtay ama ciyaalka dhib uga jiro ama guri ama duruuf ku haysata u sheegtay xukuleeda walaal iska sabarday maxaa la sameeyaa ragoo dhan waa iska sidaas walaalka u dul qaado walaalka sida yeel walaalka waxa waay waxba ma aragtay ceebtiisa iyo dhibaatadiisa banaanka ha soo dhigin u dul qaado oo walaalka waxba magaalada ku ceebeyn qofna u sheegin hooyada ay dadkaagana u sheegin walaal inta tiraadid hadda inta isdagaashin oo meel xun idinka maraysa aniga hooyadii dadkaygan wacay khadiyaan baan taagana na walaal dadkaaga wicina bal isdaji oo la fariisan ninkaaga oo tartiib idinko isku qaylinin is afgarta qofkaas waxa arkaysaa qof qalbigiisa qalbi furan yahay oo rabi inuu ku caawiyo for real ah oo si daacad ah kula hadlo ta kala soo ma na iska aamus iska heeso ma nin la aan baa jirtay u jeeday 5 sanaan garoob ahay kii waa ogeyd kii ciyaalkiisa xitaa ma soo biishe adigii teedii khadiyaanka ay taagneed bay adigu ugu furfuraysaa adigina waxa laga yaabaa inaad isleedahay qoftaan ku nafiso ma aragtay xoogaa la hadal oo la yara fariiso na aamus waxa sheeganina aamus na aamus waxa sheegan mawaalanta adi
ma ninkaa shaqaysto oo shaqadiisa maalin kasta taga xaggee wardaysaa adiga naa fadhiisa meel lagama yaabo marka walaalayaalow dumar haddaan nahay xiqdiga badan iyo xaasnimada badan ma fiicno in maaragtay always aan wax iska sheegno always isxamano always isjarjarno always ani hadda magaalo waxaan deganahay ilaahay khayr ha siiye inkastoo warkeeda aysan si fiican badana ii soo gaarin oon dadka badanaa ku xirnayn oo dad badanaa qof dadka badan ku xiran aan ahayn laakiin intaas waa la haystaa hebla iga shukaansatay ninka gabadha walaashaa ah oo dumarka ah oo isku dhiigga aatiin halkay adiga ku garab istaagi lahayd oo adiga ninkeeda markuu intuu kuu yimaado uu shukaansi kaa soo raadsada haddaa single tahay oo garoob tahay markuu shukaansi kaa soo raadsado waryaa waad akhlaaq xun tahay orad ciyaalkaaga hayso oo maaragtay reerkaaga hayso wallaahi haddaan mar dambe ku arka adoo naag raadinaya inaa naagtaada u sheegaan oo intaan u tagaan idhaanayaa ninkaan wareegaayo oo maalin kasta maaragtay shukaansi ku jira oo aniga xitaa iga soo raadiyey shaqo naa ninkaaga idab u yeer oo ninkaaga walaali macaanay wuxuu adiga kaa misgaraynaayo oo maaragtay adiga maaragtay uu kaaga cararayo naaga u shukaansanayo walaalay sida isku dhaan aan walaaltinimo sidaacada aan maaragtay isugu hiilin lahayn oo isugu garab qaban lahayn oo iscaawin lahayn oo isgarab istaagi lahayn isda-ada way araab ninka shukaansi maalintuu kaa soo raadsada adiga xarnaysaa ka soo tag taas shuruudaydana waxay tahay inaan horta iyada furtid marka hore oo iyadii ciyaalka soo daadisid ciyaalkii aabalaana ku dhacay gabadhii walaasha adigoo kale ahayd ninkii waa ka tegey adigu ku raacay ninka shalay naag ka soo tegayna adiga lagama yaabo biri inuu kuu naxaayo shaluu ciyaal iyo naag soo daadiyey adi maxay kula tahay inuu ku ag fadhinaa may kula tahay lagama yaabo kamaa tudiinu tudaan bay carabtu dhahdaa sidaa adiga ula dhaqmaysid ama sida adiga wax u gaarsiinaysid dadka baa adigana ilaahay biri wax ku gaarsiinaya gaaladan waxay tiraahdaa whatever goes around comes around waxa laale wixii u wareega kugu soo laabanaya dhagaxii adiga aan shalay tuurtay baa maanta kugu soo laabanaya maxaa ku soo haray ehelkaygii waxbaan ka sheegaynaa qabiil hadday noqoto waxbaan ka sheegaynaa dariskii waxbaan ka sheegaynaa maaragtay ilmahayagii annaga gabar yaraa kuu joogta waa yaraa cayilantaa xoogaa ama waa caato ama iskuulka kuma fiicna ama maaragtay waa ilmo yar da-da ay marayso teenager waa iska teenager naa waxaan caloosh intay kula egtaa fiiri naa oras caatee waxa waaye meeshaad iskuulka fiiri gabadha heblo iyo heblo fiiri gabdhaheeda waa a plus bay keenaan maalin kaste maaragtay fiiri meeshaad adiga maraysid maalin kasta maadooyinka waa ku dhacaysaa adiga ma waxa waaye wax allaale iyo waxaa kor u qaadno waa inaan hoos u dhignaa oo jebinaa gabadhaa yarta adiga aad dhashay berri ka maalin markay korto maxay kula tahay ilmaheeda inay kula dhaqmayso sida exactly adiga kula dhaqmaysay bay iyaduna ciyaalkeeda kula dhaqmaysaa sida adiga hoos ugu dhigaysay bay ciyaalkeedana hoos ugu dhigaysaa marka waxaan idinkula talnaa walaalayaal dumarka noocaasna horta ka fogaada mar haddaa aragtid qof 24 hours abaarsanaya ilaahay nimcuu siiyey ilaahay waa u nimceeyey ciyaal buu siiyey ilaahay waa u nimceeyey nin baa u jooga ilaahay waa u nimceeyey waa shaqeeyaa gurigay fadhisaa ciyaalkeedii ma aragtay bay haysataa nimcay ku jirtaa nimcadaas ma aragto waa ku imaanaysaa waa abaarsanaysaa 24 hours waxbaa abaarka ah ama wadarka laga abaarsanaya ama ninkia laga abaarsanaya ama dariskia laga abaarsanaa ama ciyaalkia laga abaarsanaa ama abaaran baa lagu jiraa 24 hours qofkaasoo kale ma aragtay muudkaaga iyo dabeecadaada iyo haddaad qof furfuran tahay oo qof faraxsan markasta tahay hoosay kuu dhigaysaa hadday saaxiibtaa tahay hoos bay kuu dhigaysaa lagama yaabo inay kor kuu qaado ka fogow qofkaasoo kaleeto qofka markasta wax sheeganayana waa laga fiicanyaa gebigiisaba maxaa kuu soo haray qofka mar allaale markuu ku arko wax kaa sheegaya oo si kastoo saaxiibba u tihiin si kastood qaraabo u tihiin si kastoo qofka kugu dhow yahay adiga un wax kaa sheegaya haye waxaa la yidhi mid loosera guursatee maxaa haysaa makaa tegey mise waad ceerise
haye waxaa la yidhi waxaa waaye fadhi cusubaa soo dhigatee lacagtiyaa meelaa kala dhigta la-da haye waa cayishay calooshaada calool ku darsoontay cambuuradiyaa kuu galila waxa waaye qof allaale qof hoos kuu dhigaayana qofkaas saaxiib ma aha qof mar allaale markuu kuu yimaadana ku xasdaaya oo il walaale macaanay maxaa kursigan 2,000 ka soo bixisay waa xasad haddaa u fiirsatid waa xasad 2,000 ka soo bixisay walaale macaanay isagoo wuxuu dukaan hebel yaalay 1,600 1,400 hebel ku soo gadatee maxaa kugu watay maxaa qaaliga maxaa adiga lacag iska sarifaysaa ilaa ninkaa lacag ku dhiibaayay ilaa waa shaqaysaa adiga waxaa rabtaa inaad iskuulka dib ugu noqoto ciyaalkii xoogaa kaa kala koray jaamacada rabtaa inaad dhigatid ama kooras yar qaadatid ama neers noqotid ama wuxuun samaysid maa ciyaalkaaga meel fadhiiso ciyaalkaaga hayso xaggee saacadda iskuul u gelaysaa ma maskax baa ciyaal oo iskuul u haysaa naaheedhaha iswarwareerinayna walaale ciyaalkaaga hayso lagama yaabo inay ku tiraahdo maasha allah ma iskuul baa rabtaa inaa gashi ilaaha kuu barakeeyo walaale macaana ciyaalkiina waa kaa kala koreen maasha allah that's a beautiful idea I'm proud of you aad baan maaragtay kuugu faraxsanahay inaad rabtid inaad waxbarashadaada ku noqotid oo maaragtay meel iska soo saartid lagama yaabo qoftaasna ka carar wax allaale waxay kuu tahay malaha waxaa rabtaa inaad dukaan yar furatid iyo business ma lacagta aad dukaanka ku gadanaysid maad maaragtay Soomaaliya guri ka dhisatid waxaa business iyo saacadan iyo dukaan naa heble iyo heblaba dukaankii 10,000 intay gelisay ku khasaartay maxaa adig kugu wata dukaan iyo dhargado saacadan deyn baa lagaaga gura shil ma arkaysid marka dumarku way kala yihiin qof walaalkaa ah oo waxaa jira daacad ku ah 100% oo haddaad tiraahdo walaale waxaan rabaa inaan business yar furto inay ku tiraahdo maasha allah that's a beautiful idea aniga ciyaalku waa iga yaryihiin ma ahan haddii ciyaalka sidaada kale igu koreen wallah waa kula furan lahaa businesska laakiin waa ku caawinaya wax la waxa u baahan tahay kula qabanaa waa beautiful idea maasha allah waa ku gacan qabanay waa qof walaasha ku garab taagan laakiin qof hoos ku dhigaya intaasna dadkaas maaragtay hoos noo dhigaya ama wax naga sheegaya ama waan xasdaaya ama xanta noo keenaya balada iyo fidnada baan iska daba wadnaa ayagii baan dabada ku wadanaa waxa laga yaabaa qof daacad ku ah oo walaasha ah aad u wanaagsan inay ku jirto dadka groupka aad dabada ku wadatid ma fahantay runta hadii la isku sheego taas lagama yaabo inaad ku sir qarsatid tan ogtahay inay maalin kasta 10 war ku keento maalin kasta taleefankaaga aan ka bixin baa sirtaada u sheeganaysa sirtaadan hadhow suuqay maraysa hadda sax ku leedahay walaali maxaa ka ogaa hadde ninkiina isfuraysan waxa uu qabay caadi inay tahay dadka oo og yihiin ani kaliya ii sheegtay ma u maleynay sidaas iga raali aho waa been waa munaafiqnimo gurigaaga iyo sirtaadana sideeda banaana daaytana waan soo sheegay qofna u sheeganay qof ma rabtaa inaad dhibaatadaada u sheegatid ma haddaadan haysanin qofku aad ku kalsoonto hal qof ah mar sheekada waxaa la yiri mar haddii laba dhaaftana waa u dhamaatay hal qof aad ogtahay qofkaas haddii nafta laga saaray inuu sirtaada banaanka dhigayna waad ku sir qarsan kartaa oo wixii dhibaato ku haysto u sheegan kartaa oo way jirtaa qof aad doonaysa inaad ku nafistid waad ku nafisi kartaa dhibaato malaha laakiin qofkii soo fadhiistaba haddaad u sheegatay calacalkaaga dhibaatadaada iyo waxa adiga gurigaaga iyo duruuftaada iyo ciyaalkaaga iyo waxa ku haysta ogow birina magaalada dhan in lagaga sheekaysa hadhowna waxa oranaysaa maxaa dhacay why waxaasoo dhan maxaa ogeysiiyay marba qofka ku soo wacay ku leenahay heer maxaa kugu dhacay saasaa la yiri waa naloo sheegay marka is ilaaliya dumarkan fidnada wada oo maaragtay ragga dumarkooda ka jiidanaya oo maanta dad isku diraya oo maanta dhan hebla rabta inay heblo disho oo magaaladii ka dhex raadinay maqleen wiligeey ma maqleen waxyaalahaas life-kayga ma arkin magaaladan deganaa ugu imid hebla raadinaysa inay dishay rabtaa oo meeqa sana jirnaa walaal markii la isdilaa xamartii bacaadka la isku jiray ama meelihii Soomaaliya la isdilayo madaxa la naaga madaxa iska garaaci jiray maan joognaa wili meeqa sana jirnaa 40 waa dhaaftay kontana ku sii soctaa maxay tan naagta raadinaysa hortina dishay ninkii ba ka shukaasatay de ninkaaga la hadal oo la fadhiiso waxaan gaarnay heer aan gurigi iyo reerkii iyo ciyaalkii iyo life-kayga annaga adiga halka isdaryeeli lahayd
oo adiga taada ka shaqayn lahayd. Life is really too short. nolosha inta adduunka saaranahay ilaah baa og waqti aan tegi doono. rasuulka calayhi salaam wuxuu yiri bari waaga hadduu kuu bariyo gabalka inuu kuu dhici doono ha sugin, gabalka hadduu kuu dhacana inuu waaga kuu bari doono ha sugin. nolosha dhan hadaa short ah, xagee u soconaa marka? videoga ma raba inaan badiyo, waa badiyo already. waxa weeyaan waxyaalahaas hala iska ilaaliyo. sirtaada saan idin sheegina qofna u sheegin. insha Allah subscribe samee, familkay ku soo biir. channelka runtaan sheegnaa, waxba iskuma qarino. reality hadaa rabtid iyo waxa laala wixii live-ka runta in lagu sheego halkan igala soo xiriir. waxa laala waxa su'aalo qabtiin oo hoos ku soo qori kartiin insha Allah, soo qori doontiin insha Allah. subscribe sameeya, ku soo biira groupkayaga. garaskana ma aragtay taabta hadduu ilaahay qadaro. reer carabeed baa iska anaga mararka qaarkood channel carabi program carabi aan soo dejinaya iyo Soomaali isku jira maadaama dadka ay u bateen Soomaali ha lagu hadlo ay yiraahdeen oo carabigana la ka daayo. waxa la wixii su'aal qabtiin ku soo dhawaada. gabdho walaalada ayaa jira, gabar waxa jirta room la yiraahdo room cooking, ayadana insha Allah janadkeeda ku biira. waa very quick cooking bay samaysaa ma sha Allah. channel cusub weeyaan. gabar kale walaashay Fatxiye la yiraahdana way jirtaa. channelkeeda iyo magaceedana waa idin soo qoray hoos baa idin kugu soo diray subscription-ka. ayadana ku biira. mar dhow waan soo gelin doonaa iyada insha Allah. waxay samaysaa makeup-ka, she's a professional makeup ma sha Allah. beautiful makeup bay samaysaa. marka aniga xitaa inaan ka bartaan rabaa. aniga waxayga waa iska bool baralis mariya. marka gabadhaasna mar baa idin soo gelin doonaa insha Allah. say noo tusto makeup-ka iyo waxyaalaha u baahanahay in skin care-ka aan ka hadalno iyo wajiga si loo daryeelo. khayr baan isku ognahay insha Allah. waa iska war heli doonaa. channel khalaas videoyaashin way bilowdeen insha Allah. saan soo dejinaya insha Allah at least 3 weeks 3 video a week insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.